Assalaamu calaykum. In science we trust, ama sayniska ayaanu ku kalsoonnahay, waa ereyga markasta ka soo yeedha dhalinta ay nimcadu u been sheegtay ee yidhaahda garaadka ayaanu ka shaqaysiinaynaa, balse waxaa xaqiiqo ah in markii sayniskii akhlaaqdii iyo diintii laga xuub siibay uu isagii noqday masiibo ku habsatay adduunkii oo waxyeeladiisii ay ka badatay waxtarkiisii. Ay sababtu tahay saynisku nukliyeer ama hub waxgumaado samayso wuu ku odhanayaa, wuuna kuu sahlayaa, balse inaad si akhlaaq iyo cadaalad iyo difaaca naftaa u adeegsato kuma barayo, kuumana soo jeedinayo. Xeerar suubanna kuuguma dejinayo, ee sida aad doonto ayaad ka yeelaysaa. Qodobkaasna waa ka sababay in magaalooyin dhammaystiran oo dhisan dhulka lala simo, iyada oo aan loo tudhayn waayeel, carruur, gabdhaha meel walba lala taagan yahay, xuquuqdoodaa loo doodayaa, dhallaan, kuwa uurka ku jira, ey, bisado, xayawaanno kale, dhir iyo waxyaabaha la midkaa midna. Arrimahaas oo dhan marka dal lagu fushanayo ayuunbaa xuquuqdooda lasoo hadal qaadaa, marka kalena nukliyeer ayaa lala dhacaa sidii dhacdooyinkii Hiroshima iyo Nagasaki. Haddaba waxaynu eegaynaa mid ka mid a dhacdooyinkii hubkaas nukliyeerka ah ee sayniska diintii laga xayuubiyey ee akhlaaqdii laga siibay soo kordhiyey ee adduunka ugu xumaa, waana masiibadii nukliyeerka ee Chernobyl. waa magaalada Pripyat ee dalka Ukraine oo ka durugsan caasimadda Kiev, masaafo 130 kiiloomitir ah. Magaaladaasna gebigeedaba horraantii 70meeyadii ayaa loo aasaasay sababo warshadeed iyo inay noqoto xarun lagu sameeyo nukliyeerka. Dadka shacabka ahina ma yaalaageli jirin marka laga reebo shaqaalaha ka howlgelayay warshadaas qoysaskooda. Dalkaasi waayahaas waxa uu ka tirsanaa midowgii Sofiyeetka. waxaa magaaladaas ku taallay xarumo lagu sameeyo nukliyeerka oo la magac baxay Chernobyl. haddii nukliyeerkaas la sameeyey oo hawshiisii ay si wanaagsan u socoto, ayaa la damcay in la tijaabiyo bal inuu khasaare soo gaadhi karo xarunta nukliyeerka ah haddiiba ay korontadu si kedisa uga goodo. kadibna tijaabadii ayaa la galay iyada oo laga damiyey korontada. waxaa dhacay qodob aan xisaabta lagu darsan oo ah in biyaha ku dul wareegayay yuraniyamta ee qaboojinaya ay ku shaqeeyaan korontadan. biyihii ayaana joogsaday markii korontada la jaray. yuraniyamtiina way kululaatay heer uu ka dhacay qarax nukliyeer goobtaas, waxaana ay ahayd 26 Abriil 1986, xilli habeen badh ah oo ku eg 1:00 habeennimo. nukliyeerkaas qarxay waxa uu geystay intii uu nukliyeer geysan jiray, oo markiiba waxaa hawada sare masaafo 1 kiiloomitir ah kor u baxay qiiq shucaaca oo hawo uu isku qaboojiyo nuugaya. fallaadhihii shucaacaasna waxa ay gaadheen Ukraine badankeedii iyo Ruushka cad ee ku xigayba. fallaadhahaas nukliyeerkaas ka dhashay ee shucaaca ahina waxa ay u kala go'een 3 waaxood oo midiba dabayluhu dhan u qaadeen. qaybi waxa ay u hayaantay dhanka Poland iyo dalalka Scandinavian-ka, qaybina Czechoslovakia iyo Jarmalka, qaybta kalena Romania, Bulgaria, Griiga iyo Turkiga. sidaas ayayna u baahiyeen fallaadhahaas shucaaca nukliyeerka ahi diqowga hawada iyo saamayn baaxad leh oo ay ku reebayaan halkii ay maraanba. qaraxaasi markii uu dhacay waxaa markiiba ku naf waayey shaqaalihii warshadaas nukliyeerka, qoladii dabdamiska ee loo qoondeeyey iyo khalqi kale oo badan. ilaa haddana waxaa la isku hayaa dadka ku naf waayey dhacdadaas, ama dabku ha gaadho ama shucaacu ha dilo. tirooyinka dadka ku naf waayey dhacdadaasina waxa ay qiyaas ahaan gaadhayaan waa inta tooska ugu dhimatay ee 4,000 oo qof. marka inta dalalkaas uu sii maray shucaacii saameeyey uu dilay iyo inta dhacdadaas ku waxyeeloobay la isku darayna waxa guud ahaanba u dhintay dhacdadaas 93,000 oo qof. waa tirada loo badinayo waxaana deegaanadaas ka barakacay oo ay dowladdu garab qabatay 115,000 oo qof oo deganaa. dhacdadaas Chernobyl kuma eka dhibaatadeeda iyo hagardaamadeedu intaas, xataa waayaheenna saamaynta ay yeelatay waxay maraysaa in ay wasakhayso oo dikhayso in ka badan 1.4 milyan oo hektar oo dhul ah deegaankiisii, biyihiisii, dhirtiisii iyo hawadiisiiba. waxaana waayahan kansarka qanjidhada ee dhacdadaas shucaacii ka dhashay laga qaaday la daalaadhacaya in ka badan 2.3 milyan oo ruux. dhibaatada intaasba ka sii daran ee dhacday waa inuu gibilkii hawada iyo lakabkii oosoonka ee deegaankaas ka ilaalinayay
fallaadhaha cadceedda ee daran dhaawacay oo hagardaamo laxaadle u geystay. qodobkaasina waxa uu sii labanlaabay dhibaatooyinkii dhacdadaas. fallaadhahaasi haddii ay deegaanka dhulkaa soo gaadhaanna wax kansar ka badan ayay geysanayaan, waana sababta uu ilaahay subxaanahu watacaala inoogaga xeeray ee inoogaga difaacay lakabkaas ozon ee gibilka hawada ama atmosfeerka ka midka ah. marka la isku daro tirada dadkaas barakacayaasha ah iyo dadka ilaa waayahaas ka howlgelayay sida ay waxyeelada shucaacaas iyo raadka nukliyeerkaas ee deegaankaas ku baahsan uga howlgeli lahaayeen, ee u tirtiri lahaayeen, ee ku waxyeeloobay waxa lagu qiyaasaa 600,000 oo qof. haddaba sababta dhacdadan badanka aad loogu qaadaadhigi waayey ee loo maqli waayey waa in midowgii Soofiyeedka oo waayahaas taagnaa oo talinayay uu si walba u horjoogsaday inay xogahaasi baahaan. muddo 3 maalmood ah iyada oo dhacdadaasi oogan tahay ayuu Soofiyeedkii soo hadal qaaday oo yidhi waxa dhacday dhacdo ay ku naf waayeen 2 qof, sidaas ayaana loo qariyey xogaheeda dhacdadaas. xataa waxaan la sheegayo oo dhammi waa qiyaas ee weli tirooyinka rasmiga ah lama hayo. markii waayahaas tirooyinkaas ku waxyeeloobay iyo tirokoobyada saamaynta dhacdadaas la ururiyeyna midowga Soofiyeedka ayaa liqay oo qariyey isaga oo dhowranaya biyaha wejiga. markii uu dumay howlgalladii la qaaday ee lagu soo ururinayay xogaha dhacdadaas wixii ka soo baxayna waxay noqdeen wax lagu kala tegan yahay oo tirada dhimashada waxaa lagu qiyaasayaa 4,000 ilaa 93,000 oo qof inay ku naf waayeen sababta waxyeeladaas. xogo ka soo baxaya caasimadda Kiev oo ay BBC-du soo bandhigtayna waxay sheegayaan in muwaadiniinta midowga Soofiyeedka ay ku waxyeeloobay dhacdadaas Chernobyl ay gaadhayaan 5 milyan oo ruux. Ukraine ay kaligeed kaga waxyeeloobeen in ka badan 3 milyan oo qof, halka Ruushka cadna ay ku waxyeeloobeen dhacdadaas in ka badan 800,000 oo qof. dowladda Ukraine oo kaliya ahina ay la daalaadhacayso 63,525 dumar ah oo carmal ah oo raggoodii ku madheen dhacdadaas. sanadkii 2018 dhacdadaas dadka ay waxyeeladii weli sii hayso ee ama ay dhowaan soo ridatay ama kuwii hore ka hadhay ee joogay Ukraine waxaa lagu qiyaasay 107,115 qof. dhanka deegaanka dhulka ku yaala labadaas dal ee Ruushka iyo Ukraine ee ku waxyeeloobay dhacdadaas waxaa lagu qiyaasaa 150,000 oo kiiloomitir square. ilaa haddana 4,000 oo kiiloomitir square ayaa ah deegaan laga hayaamay oo in la galaa ay mamnuuc tahay, cid u dhowaan kartaana aanay jirinba. dhacdadaas shucaaceedu waxa uu gaadhay xataa Ingiriiska, waxaana saamoobay deegaankii iyo dhirtii. muddo sannado ah ayay Ingiriiska mamnuuc ka ahayd in la gado wax soo saarka xoolaha ee hilibka iyo caanaha leh maadaama ay dhirtaas mowday ee shucaacii gaadhay cunayeen. waxaa jirtay murti adduunka caan ka ahayd oo ah waayaha ayaa dhibaato kastaba dawo u noqda, yacni haddii ay dhibaato dhacdo mar kasta oo xilligu uu sii socdo in la ilaawo oo waxyeeladeedii ay baabaado. balse masiibadan iyo aafadan Chernobyl toos ayay u khilaaftay murtidaas oo mar kasta oo xilligu kasii dib dhaco saamaynteeda ayaa sii baahda oo sii badata. maanta oo laga joogo in ka badan 30 sannadoodna weli waa lala daalaadhacaya waxyeeladii ay geysatay dhacdadaasi. ilaa haddana tirokoobyo rasmiya lagama hayo waxyeelooyinka deegaankaas Chernobyl dhacdada ka dhacday ay geysatay, oo waa dhibaato socota uun. dhacdadani inkasta oo aanay ka xumayn kana saamayn badnayn dhibaatadii loo geystay Jabbaan magaalooyinkeedii ee weliba sida kaska iyo badhaadhka ah loola beegsaday, haddana waxaa lagu tibaaxaa inay tahay dhacdadii nukliyeer ee ugu xumayd abid. dabcan maadaama ay iyaga waxyeelaysay ilaan cid kale danka ma laha ee waxay ku noqotay dhacdadii ugu baanayd ee abid adduunka soo marta ee ka dhalata nukliyeer. sanadkii 1997 oo ku aadan 11 sannadood kadib ayaa la soo saaray dhigano loogu magac daray salaada Chernobyl. dhiganahaasina kuma nuuxnuuxsanayo kafaaloodka sababihii iyo arrimihii keensaday dhacdadaas nukliyeerka ah oo sida aynu hore u soo xusnay midowgii Soofiyeedka ayaa isaga oo biyaha wejiga ilaashanaya dhacdadaas dambabasay oo daboolay oo qariyey. waxaana uu dhiganahaasi aad u gorfaynayay mustaqbalka soo aadan dhacdadan Chernobyl, waxyeelada ay u geysan doonto dadka iyo deegaanka ku xeeran halka ay ka dhacday. sanadkii 1990 markii uu Soofiyeedkii tamar yareeyay ee awoodi waayay inuu dhacdadaas qariyo intaas wax ka badan oo uu isku dayo inuu isagu daweeyo ayuu si rasmi ah u codsaday in garab iyo gaashaan dawli ah la siiyo
waana loo howlgalay maadaama ay deegaanadaas iyo dalalkaas ku xeeran oo dhan dhacdadani daaranayd. nadiifinta iyo dhammaynta hadhaaga nukliyarkaasna si walba haddii loo dadaalo waxa lagu qiyaasay in lagu soo afmeerayo muddo ku eeg ilaa 2065. xataa marka la nadiifiyana 20,000 ee sannadood ee soo fool kale ma ahaanayso magaalo ku habboon in la dego. waxa la yaab leh in qaybtaas gubatay ee warshadaas nukliyarka mooyaane qaybihii kale ay sii shaqaynayeen oo la damacsanaa in nukliyar lagu sameeyo. waa meesha masiibadaasi ay ka dhacday. markii la arkay inaanay suuragal ahaynna tii u dambeysay waxaa la xidhay sanadkii 2000. dhacdadan saamaynta ay ku yeelatay garaadka maadiga ee deegaanadaas aawadeed waxaa loo sameeyey jirid badan oo ka faalloonaysa sidii ay u dhacday. waxaana ugu caansan musalsal loogu magac daray dhacdadan oo la yidhaahdo Chernobyl oo soo baxay sanadkan 2019. tirada xalqadihiisuna ay gaadhayaan 5. qaabka agdhow qaabkii dhacdadanna badanka wuu u sawirayaa filimkaasi, balse filimkan wuu diiday aqalka Kremlinka ee qasriga Ruushku, waxaana uu ku tibaaxay inuu yahay majare habaabin Maraykan ka dambeeyo. dhowaanna uu Ruushku filimkaas oo saxa soo saari doono. sidan si la mid ah dhacdooyinka nukliyarku way dhacayaan goor aan weliba dheerayn marka cilmi saynis iyo aqoon lagu hadaaqo ee la yidhaahdo in science we trust ama sayniska ayaanu caabudaynaa. sidii uu saynisku ka maqan yahay diinta oo ka gaar yahay ama u dhigmayo, waxaa dhacaysa in la samaysto wax kasta oo ciddaas awood siinaysa si ay adduunka intiisa kale dad iyo duunyaba ugu gumaysato ay sababtu tahay. kitaabkooda muqadaska ee Darwin ayaa dhigaya in hadba ka awoodda lihi uu adduunka ku doobiyo inta kalena la dulmiyo oo cagta la hoosgeliyo. balse waxaa xaqiiqo ah in aqoonta saxda iyo diinteena suuban ee islaamku meel ay isku diidan yihiin ilaa hadda aan lahaynin. ikhtirac kasta ama dahfayd kasta oo la gaadhaana ay caddayn iyo xaqiijin lagu qanco noqonayaan aayad ka mida aayadaha qur-aanka ama xadiis ka mida xadiisyada nebiga. cilmiga iyo akhlaaqda marka la isku ladhana uu caalamku gaadhayo heerkii uu gaadhay waayihii dahabiga ahaa ee islaamka ee xataa ay dugaaggu cuni waayeen ugaadhii halka ay gaadhay cadaaladii. haddiise cilmiga iyo waxqabadkiisa akhlaaqda iyo diinta suuban laga xayuubiyo, waxaa dhacaysa iyada oo aan loo aaba yeelayn haween, caruur, kuwa uurka ku jira, rag, waayeel, xayawaan, dugsiyo, ganacsiyo, dhismayaal iyo dhirtoona in magaalo dhan hal mar la dumiyo oo dhulka lala simo. ilaan diintoodu waa hadba kii awoodda haya ha gumaysto inta kale ee arrimahaasoo dhammina waxa ay ku tusayaan halka uu taagan yahay garaadkooda ay ku faanaan inay ka shaqaysiiyaan oo adeegsadaan. wassalaamu calaykum.